gabadhiiba kuma luurin kaba goosay hadalkii marka gabadhiiba hadalkeedii iyo sheekadeedii markiiba ugu dambeysay intii ay u dhiibtay ayuunba xagga ula jeestay dadkiina war laguma celin moogtay waa kuwii iska dareeray aroortii sidii unbay in war loo geeyo iyo dee dhaqdhaqaaq iyo waxaan soo kordhay iyo in shaqo iyo wax ayaa la sugayey wax jawaaba cidi kuma celin markii cidi ka daba tegi weyday wax waraba ay ka waayeen ayay markaa meeshii ku soo noqonayaan dadkii soo gadaal noqoy hadba goosan soo biir higsi laysku soo gaadh gowraha duleedkii gacalkii isugu yimi golihii la weynee dhagxan laysu soo guray shaxda loo garaadee lagu guuliyey meeshii sheekadu gabaabsiday bargataatigii ciir galaayuuska hibashada guuxa hooska tuurka ah gocashada kor loo qaado dabeedna waa warkii ay qayladu baxday ee uu dee askarigii ka faa'iidaystay ee la yidhi maaragtay ha dhacdo tani markii dee laga waayey ku talagalkii wixii laga filayey dabeetana taasaa soo dhiiri gelisay in markaa askarigu uu isyaado maanta dadku waa diyaare alla ilahi hadda fursaddan ka faa'iidayso dee maaragtay jibbadooda ay doonayaan isbeddel ka faa'iidayso goray baa ka ciyey meel marka qoladii gaadhka ahayd waa kii isagu diray gaadhka ee yidhi ordoo dee xuduudka iyo dhulka taga oo dalka cadowga ka ilaaliya askartii waa kii caynkaa ku yidhi marka askariga halka ku jira oo ninkii maalintiina way tegaya oo xuduudka dee sidaa u taagan oo etoobiya matalan hor taagan ayaa goray meel agtiisaa daaqaya ayaa ciyey oo isaga la hadlaya waxaa soo galay markaa guray waa ninkii ugu dambeeyey goray baa ka ciyey meel gurayow war lagu siiyey gobanimadii waa halis geesku beelaha weeyaan markaa goray agtiisa daaqayey oo dareenka dadka iyo cabashada jirta og ayaa intuu la hadlay ninkii odayga ahay maalintiina way tegay oo markaa xuduudka taagan ayuu yidhi gobanimadii waa halisoo dadkiina waa baylaha buu ku yidhi yacni wuu gubaabiyey muxuu u qaatay in goraygu ku yidhi kaalay gawrac neefka ayuu u qaatay yani ismaandhaafka goraygii wuxuu ka hadlayaa gobanimadii inay halis tahay oo isaga laga rabo inuu badbaadiyo isna wuxuu u qaatay inuu ku yidhi war neef baa halkan galgalanaye kaalay gawrac oo isagu wuxuu wax ka maqlaa waa dhuunta weeyaan goraygii baa haddana hadal kale ku celiyey gurigiina dadab ma leh laga guray wixii yiil dadkii waa la gaasiray lama gudin xilkoodii intaa wuxuu doonayaa maaragtay inuu guubaabiyo kiciyo goosaradihii qaar gurac kuuma dhigina ayuu kii kalena ayuu ku yidhi oo waxoogaa tibin oo guriga yiilay ayuu u qaatay in kii meesha loo doortay inuu wada cunay oo aanu isaga waxba u reebin markaasi oo goosaradihii miyuu dhammaystay inaan waxba ii reebin goraygii baa haddana ku celiyey gabadhiina waa ugub iyaduna gayaankeed guumays ka noqoto guudkaa u daba weli yani gobanimadii sidii loo soo helay cidi lama aqalgelinoo sidii bay ay fikrad u tahay sarar gool wan shili soo geedaysan hooya ayuu haddana ku yidhi uu yidhi ma sarar baad haysaa hiliba goraygiina yaabiyo de goraygii markaasuu yaabay waxaanuu ku hadlayo iyo jawaabta uu siinayo goraygiina yaabiyo intuu iska daaqa tegey goraygiina yaabiyo ka gurqaafa buu yidhi eeg ninkii markaa wadhiilaah la siiyey ninkii wuxuu qaatay in ninkii goosaradihii cunay oo halkaa meeshii wax lagu cunayo oo haddii ilahay ka dhigo aan isaga cidiba aanan cidi ku talagelin guray oo xuslinayo baahi gaylamaysiiyo gabadana eryaysaa goodiga ka soo kuday waa markii u qabsanayey xukunka gobaad leexadiisay meel dheer ka garato inantiina shooqalkii ku jirtaayo halka labada harar iska galaan ayay meel yar intay saa u banaysay ayay ka eegaysaa isaga gobaad leexadiisay meel dheer ka garato waa gaalla joogii yaradkii iyo gabaatiga gudcursiiyey berigii ninka soo ordaya waa ninkii markii gumaysigu dalka joogay isagu u qabqaban jiray dadka usoo xili jiray u leyn jiray waa gaalla joogii yaradkii iyo gabaatiga gudcursiiyey berigii waa ninkii gumaystuhu marka uu gabraarta ku garanuugta celin jiray isla soo galadhiyey iyadana talow go-an haanbay garays iyo gambo iyo hagoog iyo googarad jacfaan iyo maryo dumar u geliso gunta iyo furkiibay xinno ugu guduudo waxay tidhi gadaan dheer ninka soo gurdamayaa gabadh dooni maayo gogol looma fidiye guushka iyo qadhaabka iyo gawska ugu roonow dhaxantana wax uga geli aniguna gadaashiiyo buradan ka baxaya gurigiina waa kaas markay aragtay ninka soo socdaa inuu maxamed siyaad barre yahay ilaa ma geeyo gobanimadan inuu isagu haddii ilaahay ka dhigo maaragtay qabtee ayay haan gadaandheer la yidhaahdo halka
raarta iska taalla ayay intay googarad u xidhay oo diric u gelisay oo gambo u xidhay oo hagoog haddii la ka dhigo maro u hagoojisay oo haddii alla ka dhigo xinne u marisay xag furka iyo xaggii hoose ayay ahaantii la hadashay waxay tihi ninkan soo socdaa gobannimo isagu ehel uma ahoo ma geeye wuxuu doonayaa wuxuu cunay iyo wuxuu dhaxantii uu ka yimi ka gashade intaa ugu filow anna xagga dambaan ka baxaya dee gurigiina waa kaas marka gobannimadu horta maalintaas ayay raarta ka baxday gaylankii xawaaraha gurmago-an xaskeediyo gubad raran la soo jiidh dadkii qaar galaafaha gaadada ku soo qaad gurigii ku soo haki maxamed geeyada hasha garow u yeedhyeedh godol oo u gaalgaal gabantana ka yara celi halkaa sheekadaas haynoo yar joogtay mid kalaynu gelaynaa waxa la yidhi guyaal hore bahal geed ismarisaa maqlay gobol islaam oo wadaad gaasa baxay raba bahalkan geed ismariska la yidhaahdo oo marna qof noqda marna bahal noqda ayaa maalin maalmaha ka mid ah isagoo meel iska maraya ayuu niman galgalay quraankii ilaana quraan yaqaana maahay ku galgalay quraankii guudaankii dhayi waa cudurkii guudaanka la odhan jiray geelii ka daweyn waa goosan lumay bariin waa lagu baray gadaysiyeena geedi baabow naf gunaanadkeeda iyo garashada ku dheerayn isna gogasha loo badi markaasaa la yidhi bal haddaba yeelkiisaanu sii bal aynu ka gubna ku yaboohi weydi iyadana ka sii gudub kuya gacalayaal oo 100 shilin halay guro gorodaa la wada lulay ku go'baana lagu yidhi gonduhu u sii degay kuya gadismariskii gini lacag ayaa hura ninkii 100 halaad joogay markii ugu dambaysay bal haata ayaa gini 20 faran oo aan maaragtay shaah ku cabo yaa haya laga goosay hadalkii laga gaabsay hadalkii wuxuu yidhi galkiisii ayaa kitaabka naga gada